بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. magacayga waa Dr. Maxamed Saciid Maxamuud kana howlgala qaybta wadnaha ee isbitaalka takhasusiga ee tacliimiga ee Dalmar. maanta waxay ku asteysan tahay xawayaan maalinta caalamiga ah ee dhiigkarka. maalintaas oo loo asteeyay 17 May sanad kasta. waxaa la soo bilaabay sanadkii 2005 urur weyne caalami ah oo isku imaaday oo World Hypertension League la dhahay oo ka kooban ilaa 85 dal. hadafka ugu weyn oo laga leeyahay ay tahay in la wacyigeliyo dadka dhiigkarka aanan qabin si iskaga ilaalin lahaayeen, sidoo kaleetana dadka la nool sidii oo la noolaan lahaayeen oo dhibaato caafimaad uusan gaarsiin lahayn. si guud waxyaabaha loo baahan yahay waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan qofka inuu ogaado dhiigkarku waa maxaa waaye. dhiigkarka wax kale maahan, waxaa jira waxa weeyaan qulqulka dhiigga cadaadis ama awood uu ku hayo darbiyada halbowlayaasha. taasi dabiici ah waxa weeyaan pressure dabiici ah jira oo qulqulkaas sahlaya iyo dhiigga socoshadiisa. pressurekaas ama cadaadiskaas dabiiciga ah markuu xadkiisa ka baxo waxaa la dhahaa high blood pressure ama hypertension ama dhiigkar uu noqonaya. sida normalka ah oo la rabo waxa weeyaan dhiigga koreeto oo systolic pressure-ka ah inuu ka yaraado 120, kan kaleetana oo diastolic ama dhiigga hooseeyana inuu ka yaraado asagana 80 sida normalka ah. waxaa kaleeto jira mid kaleeto elevated ah, qofka dhiigkar ma qabo laakiin pressurekiisa xoogaa wuu yara kacsan yahay. waxa weeyaan 120 ilaa 129 oo waxa waa systolic ama dhiigga koreeta iyo kan hoose oo 80 ama ka hoose ah. qofka waxa ugu muhiimsan oo awareness-ka loogu bixinayo waxa weeyaan inuu iska ilaaliyo waxyaabaha risk factors. waxaa jira waxyaabo xanuunka u nugleynayo qofka ama dhibaatadan caafimaad inay ku imaado u nugleynayo. ayaga causative agents maahan ama wax sababaya maahan, laakiin waxay u nugleynayaan dhibaatadan haddii jirtan inay uga sii darto, haddaysan jirinna inuu u nuglaado xanuunka inuu ku dhaco. waxaa kamid ah cayilka kamid ah, waxaa kamid ah qofka activity inuusan lahayn kamid ah. sidoo kale waxaa kamid ah waxaa qofka dietkiisa ama cuntadiisa inay ku badan tahay cusbado kaleeto. ayaga waxay u nugleynayaan qofka dhiigkar inuu ku imaado, laakiin macnaheeda maahan way keenayaan maaha. marka waxyaabahaas u nugleynayo in la iska ilaaliyo qayb waxay ka tahay wacyigelinta qayb ka tahay. marka wacyigelinta ugu muhiimsan waxa weeye oo maalintan la bixinayo qofka si sax ah inuu iskaga cabiro dhiigkarkiisa, sidoo kaleetana inuu la socdo haddii waxa weeye dhiigkar uu qabana daawadiisa, cabirkiisa iyo jimicsigiisa iyo wixiisa inuu sameeyo iyo la socoshadiisa caafimadeed. hadduu la noolyahay xanuunka inuu la noolaado dhibaato uunan gaarsiinin, hadduusan la noolayna inuu ka hortago intuu iska ilaalin karo cayilkaas iyo cusbadaas iyo activities ama dhaqdhaqaaqiisa oo yar inuu iska ilaaliyo. intaas waxay ka saacidaya waxa waaye xanuunkii hadduusan qabin waxa weeyaan inuu iska ilaaliyo uu ka hortago. haddii xanuunkii uu la nool yahana in aysan uga sii darin, sababtoo adoo xanuunkii la nool haddana haddaad sii cayilan tahay sidoo kaleetana dhaqdhaqaaq badan aadan lahayn, halis waxaa ugu jirtaa dhibaato caafimadeed inuu kugu geysto dhiigkarkaas. macnaa wacyigelinta ugu muhiimsan oo la bixinayo waxa weeyaan qofka dhiigkarka marka hore inuu ku dadaalo inuusan dhiigkarka ku imaanin. oo kale qadar ma celin kartid, laakiin waxyaabaha kuu nugleynaya haddii cayilkii hadday tahay inuu waxa qofkii cayil dhimis inuu iska sameeyo, haddii cusbo badan uu qofka isticmaali jiro oo kaleeto cusbadii inuu iska yareeyo, hadduu qofka jimicsi ama dhaqdhaqaaq uusan lahayn oo kaleeto inuu jimicsi iyo dhaqdhaqaaq sameysto maalinle ah oo 30 ilaa 45 daqiiqo ah inuu sameeyo, hadduu sigaar cabi jiray ama alcohol iyo qaadan jiray waxyaabahaas inuu iska yareeyo. waa haddii uusan xanuunkii uusan qabin. hadduu xanuunka qabana waana uga sii muhiimsan tahay. qofka dhiigkarka qaba waxaa aad iyo aad ugu muhiimsan waxa weeyaan inuu cayilkiisa waa iska dhimo oo cayilkii normalka ahayd uu isku dayo inuu isku ilaaliyo weydkiisa saxda ah. sidoo kaleeto haddii cunto cusbo badan oo cunayo asoo dhiigkarka qabo dhibaatadii uga sii zaa'idinaysa
inuu iska yareeyo jimicsi hadduusan lahayn inuu jadwalkiisa jimicsi uu ku darsado haddii fursadda iyo u saamaxadan waxa weeyaan 6 bilood mar ama sanadkiiba mar inuu iska hubiyo kelidiisa wadnihiisa indhihiisa iyo caafimaadkiisa guud inuu iska waxeeyo xanuunkan waa lala noolaan karaa marka la noolaanshahaas aa loo baahan yahay oo daawooyinkiisana in la qaato cabirkiisana lala socdo sidoo kaleetan waxyaabaha kaleeto u nugleynaya ama dhibaatada uga sii darayaan qofka inuu iska ilaaliyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dalmar Specialty and Teaching Hospital. Higsigeennu waa caafimaadkaaga.